marka waxaan ku leeyahay nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonaya nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh qayrta qaahay madana meel kasta joogtaan si kasta maqalkii muuqaalkii idiin soo gaariyaba halka diga daawanaysan waa channelka Shaacir Sheekay wana walaalkii Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka talahinta bulshada oo aan idinku hayo arrin runtii aad u la yaab badan وهاك صاحب انتنا برنامج gulgalin falla sabsaasa channelkayga sidoo kale like la dhac muuqaalkan soo gaar saaxiibo badan siina share gareey waxa laga yaabaa codkayga xoogaa inuu si fiican ku soo gaari lahayaa waa ka xumahay xoogaa roob baa daay meeshan joogo raxmad ilaahay noo siyaadiyo qabow iyo kuleyl isla socdaan dareemaya marka ilaahay noo siyaadiyo wagaag saaxiibayaal sawirkan idin muuqda waa wiil Soomaaliyeed oo runtii qisadiisu ay aad ii soo jiidatay qisadaasi waxa qoray nin xildhibaan ah oo idinku baad wada garanaysaan lagu magacaabo Barqad runtii qisadaasi markii aan arkay waan jeclaysanaa in la wadaago aad been ii soo jiidatay waana arrin ku deesho mudan ka hor si inta aan la wadaagin waxaan rabaa in la wadaago muuqaal markii aan social media baraha bulshada aan ku arkay aan anigaba u naxay dadka doonaya inay noloshooda ku soo bandhigaan social media dadkaas oo aan markii hore bogaadin jiray ayaan hadda ka naxay xaqiiqatan markii aan muuqaalkaasi arkay intaan muuqaalkaas wuxuu yahay aan ka wada hadlin wax ila daawado waxa laga yaabaa in wali aysan dad badan si fiican u fahmin maxaa muuqaalkan ka qaldan wax kale muuqaalkan kama qaldana waa markii saddexaad mise markii labaad ee barnaamijkeeda talahinta bulshada intaan ku guda jiray aan baraha bulshada ku arkayo dad noloshooda social media ku soo bandhiga ee haddana baraankii sameeya laakiin ay baraankiga ka noqdo real baraankii macnaha baraankii wax lagu leeyahay waa horta wax been ah oo macnaha qofku lagu sameeyo kale ama wax macnaha aan jirin haddana sida ay tahay wixii dadku ay sameeyeen ayaa waxay noqonayaan run cajiib runtii arrintani waa arrin markii ay arkaan dadka doonaya inay YouTube-ka ama social media-ba ku soo biiraan iyaga oo doonaya in noloshooda faraxsanaantooda lamaanimadooda ay ku soo bandhigaan markii ay arkaan ay iska laaban doonaan حبيبي أنا صورت أنا أصدقنا كنا بنصورتها حبيبي كالك لا فرصة حبيبي استدج حبيبي استدج أوكي هاي إيش أنا كنا بنسوي هذا مصور عصا muuqaalka soo arkaysiin wuxuu ahaa xilligii la duubayay mid jiliin ah macnaha mid aan xaqiiqo ahayn oo jiliin ah oo caadiyaho dad ayagu markaa nolosha social media ku faraxsan ay soo bandhigayeen laakiin maanta midka baraha bulshada haysta ama social media lagu faafinayo waa mid reality ah oo xilligaasi la duubayay muuqaalkaas jiliinka ahaa hadda u rumaynayo oo reality ka dhigay هاي ناس محيط بلادي سكرتين أنا مطوي ليش دايل كيغا هو فيرن عجيب arrintaas runtii markii aan arkay aad baan uga naxay waxaan u baqay lamaanaha ama dadka cusub ee social media YouTube-ka jecel inay ku daysadaan dadka YouTube-ka guulaha ka gaaray ee ayagoo faraxsan baashaalaya noloshooda iska wata ku soo bandhigi jiray dadkii ku daysan lahaa ama dadkii doonayay inay wadadaasi qaadaan ayuu runtii muuqaalkani uu murugo u noqday ani ahaan waxaan bogaadi jiray dadka lamaanayaasha social media YouTube-ka isticmaala ee sida wanaagsan oo isticmaala waxay ahaayeen dadka aan ugu daawashada badan markaan daawanayo kale dadka aad ii soo jiito kale haddaan YouTube-ka isticmaalo maahan inaan dadka daawan laakiin markii aan muuqaalada daawanayo kale way iga macaan badnaa oo iga qurux badneed markii aan arko dad isku faraxsan oo iyagoo faraxsan YouTube-ka social media ku jira laakiin muuqaalkani wuxuu gabi ahaanba beeninayaa farxaddii iga muuqatay dadkaas waxaan jeclaan lahaa gabadha walaashay YouTube riska ah inaan fariin yar oo dardaaran oo kooban u reebo macnaha in horta dardaaran ama lala dardaarmo way ka dhantahay maasha Allah waa gabar aad qurux hadii la yiraahdo Ilaahay siiyay hadii la yiraahdo maskiinimo iyo daacadnimo Ilaahay siiyay okay laakiin waxa ay tahay muslimka sidiisaba laba margood laga wada qanin xaqiiqatan gabadhaas hadii daawanayso waxaan dhihi lahaay horta waxaad qaadaa oo aad yeeshaa mahmaahdi ahayd intaadan falin ka fiirso macnaha intaadan falin intaadan talaabo qaadan ka fiirso sababta Soomaalidu waxay tiraahdaa hubsiimo hal baa la siistaa waxa laga yaabaa in wali ay wax sii jiraan laakiin shakhsiyaadka ama dadka sidan gabadha masaakiinta u galaya runtii waan jafi lahaa tuka hagaajiyo waxta ku tilmaami lahaa laakiin waxaan leeyahay
cigaal shidaad baa hadda ka hor waxa uu dheelmaday habeen buu socday xabsaay cigaal shidaad baa habeen hadda ka hor socday markuu habeenkii socday baa waxaa ka soo horbaxay wax uusan garanaynin oo cabsi geliyey oo adiga nooc kala cigaal wuxuu isir waxaan ku muuqda ama humaagtan ku muuqataa waa libaax alla ilaahay libaaxna hadad ku sii socoto afku ku ridanaya wana ku cunaya kadibna cigaal shidaad waxa uu sameeyay halkii uu joogay ayuu daafac ka galay warankiisa la soo baxay bartii ayuu fadhiistay ilaa waagu ka bariyo wuxuu difaacaga jiray humaagtii oo arkay ee uu maleeynayay bahalka sababtoo Soomaalida waxay tiraahdaa dad iyo duur wax walba ka filo markii uu waagu bariyay ayuu wuxuu arkay humaagtii oo arkay oo noqotay geed wixii uu macnaha libaax u maleynayay oo geed noqday habeenkii oo kale dadka haddii aad cabsi dareentid wax walba waxay kula noqonayaan wixii markaas adiga u soo warato marka maadaama geedkii oo libaaxa u maleynayay wixii uu libaaxa u maleynayay oo geed ku noqday ayaa waxa uu yiri geedow ma waxaad igu noqotay mise waxaan ku maleynayay mise waxaan loo noqon doon macnaha wuxuu dhahay waxaan ku maleynayay libaax waxaad igu noqotay geed waxaan si loo noqon doon inaan habeen dambe dheelmado intaadan anaga ama aan nolosha quruxda badan noo soo bandhigin waxaad samaysaa taxadar samay nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaa markana waxaan rabaa inaan la wadaago qisada wiilka idin sheeg farxaan yare waxa uu ahaa wiil agoon oo aabihii dhintay qoyskooda isaga ayaa u weynaa waxaana ka yaraa laba hablood oo ay walaalo yihiin hooyadii waxa ay ku dabarto qoyska maana haynin waxayna daruuftu ku qasabtay inuu shaqaysto oo wuxuu uu bartanka magaalada ku baarishlayn jiray kabaha farxaan waxa uu dhexda u xidhay inuu samato bixiyo nolosha hooyadii iyo hablaha yaryar ee agoonta ah oo suuqa uga soo shaqeeyo shaqada kaliya oo qaban karay waxa ay ahayd baalashnimada 3 sano ka hor ayaan kula kulmay maqaayad ku taala magaalada Hargeysa kadibna nasiibka ayaa igu beegay in inta uu horteeda soo istaago ayuu igu yiri kabaha ma ku baalashlayn kara annaha ya adeer ayaan ugu jawaabay markii uu soo dhameeyay ayuu igu yiri waan ku garanayaa soo barqad ma tihid annaha ayaan ku iri gurigaaga ayaan soo hormaraa ayuu ku sii daray xageed gashaa ayaan ku yiri isku xaafad ayaan nahay ayuu igu yiri waayihiisii nololeed ayuu iga waramay waxa aan aad u jeclaaday raganimada iyo kartida ku jirta waxa aan weydiiyay waxbarasho marabtaa wuxuuna igu yiri ha waliba madrasada caruurta dhigato ayaan jeclaan lahaa inaan quraanka ka barto ayuu igu jawaabay waxaan ku iri hooyada igu yar oo guriga igu kaalaya subaxii dambe ayuu aqalka keenay hooyadii oo nimco la yiraahdo kadibna waxaan go'aan ku gaarnay inaan ilmaha waxbarasho geeyo quraanka uu jeclaadana aan baro saaxiibo qaali ah oo reer Sweden ah allaha khayr ha siiye ayaa iga dulqaaday nolosha qoyskooda waxbarashadiina sida ayaan ku geynay maanta ayuu qatimay quraanka kariimka waxa mahad Allah ah hadda macadka dacwada sanadkii koowaad ayuu ku jiraa sidoo kale jaamacadda waxa uu rabaa inuu shareecada barto hadda hamigiisu waa macalinimo taasna waxa uu ballan qaaday maamulaha madrasada uu dhigan jiray oo ah mudane xariir faarax hadaba qisadaasi runtii aad bay soo jiidatay maadaama ay qoraal ahaydna Soomaaliduna ay inta badan wax dhageysato waxna daawato ee waxna aqrin waxaan jeclaa in dad badan dhagooda ugu shuba si ay qeyrkaas oo kale ugu daysadaan tusaale ahaan dadka siyaasadda ku jira oo kale hadii xildhibaano ama wasiiro madaxweynaha lahaayeen oo kale inay qaadaan oo kale talaabada barqad ku daysadaan oo kale ay muhiimadeedu in qisas in la wadaago runtii anina aad bay soo jiidatay dad badan inay soo jiido doonto waan rajeenayaa aad badan soo daafshada muuqaalka shaashka la saayo muuqaal daba